أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، waxaan ka hadlaynaa walaalayaal hadduu ilaahay yidhaahdo caawa intuu alla inooga saamaxo qisatu nihaaya, khaatumada insaanka ayaan ka hadlaynaa. insaankan daciifka ah, insaankan miskiinka ah, insaankan arlada isku waaweyneynaya ee ku kibraya, nihaayadiisu gebagabadiisu maxay noqon doontaa? insaanka arlada waad isku kibrinaysaa insaanow, arlada waad isku qaadqaadaysaa insaanow, laakiin nihaayadaadu maxay noqon doontaa? arladan markaad ka sii baxaysid eed aakhiro u socotid, nihaayadaadu maxay noqon doontaa? khaatumadaadu maxay noqon doontaa? maxaa lagugu khatimi noloshan adduunka ah? ma wanaag iyo khayr, mise shar iyo xumaan kay noqon doontaa? ilaahay ka dhiga khaatumadeena ta wanaagsan. bimaada yukhtam? insaankan maxaa loogu khatimayaa? qowlkiisu siduu noqon doonaa? ficilkiisu siduu noqon doonaa? insaankani 50 sano ayuu soo noolaa, ama 60 sano ayuu soo noolaa, 70 dheh, bal 100 dheh, intuu doona ha noolaado. insaankani cumrigiisu ha dheeraado ama ha gaabto, nihaayadiisu maxay noqon doontaa? insaankan markuu insaanku uu dhimanayo ayuha alikhwa, marka firaashka mawdka la dul faliisiiyo uu dul jiifo ee la rogrogayo, markay naftiisu ay soo gaadho qarqarada xagga ay soo gaadho, ay shanqadhaysa, ay qarqadh ay leedahay, markay indhihiisu taagmaan uu indhaha caddeeyo, markay neefsigu uu neefsanayay uu diiq ku noqdo ad kari waayo inuu saani u neefsado, midabkiisii wuu isbedelay, xaaladiisu way isbedeshay. wakhtigaas wuxuu dhinac ka arkayaa dadkiisii, awlaadiisii, haweenaydiisii, asxaabtii, jiiraankiisii, dadkii buu arkayaa. dhinac gurigiisii buu arkayaa, adduunkanuu arkayaa, cadceedda soo baxaysa waa tii ugu dambaysay. dhinacna wuxuu ka arkayaa malaa'igtii ilaahay ayuu ka arkayaa, malaa'igtii naxariista ayuu ka arkayaa oo u bishaaraynaysa. walciyaadu billaah, amaa wuxuu arkayaa malaa'igtii cadaabta oo u hanjabaysa oo le u soo bax, cadho ilaahay iyo xumaan u soo bax. waxaala aada iyo aada u daran ayuha alikhwatu alkiraam. awlaaddiisi baa u dhawaaqaysa, aabba xaggee tegi? aabba maad naga dhiman? inankiisii uu jeclaa, haweenaydiisii way ku dul ooyayaan, dadkii oo dhan ayaa ku ooyaya, qayladooda wuu maqlayaa, hadalkooga wuu maqlayaa, shanqadhooda wuu maqlayaa, jawaab ma siin karayo. waa xaalad aada u daran. dhinacna malaa'igtii ilaahay ayuu arkayaa, midabkiisu waa isbedelayaa. ilaahay waxa uu yidhi kallaa idaa balagat الtaraaqiya waqiila man raaq wadanna annahu اlfiraaq. ilaahay waxa uu yidhi naftu markay kalxamaha ay soo gaadho, ay qarqaradii ay bilowdo, dadkii baa isku yacyaaci, dadkii baa isku orordi, dhakhtar doona, waqiila
وحال أورن من راق أيا دوين أيا عندوف كتفي وذاتك أدونا رادية دكتور رادية وقيل إلي يهدو من راق أيا دوين وظن أنه الفراق إساقنا وقتك وحو يقين صدي وأركي إنه أرلدا أكتغيه فراق خلاص وسي صعدا وسي بحيا ما هل كريو وليجيم بدختر دونا وليجيم بوحد دونتان يدونا وظن أنه الفراق وحو أركي إنه لمشى أي تهي أو نبتهي أيو أركي خلاص نفتي باك بحيث ديق بدريمية الدونكي أوردن أي عديدكو ما لا اكتب أركيا تلو محل لوغو ختميا تلو لا إله إلا الله ما أرن كريا تذكي أقيا عيا لا إله إلا الله بل حسسينيا تلو محسسا دونا بؤو هرادية وقت قاس هراد حوق الأيها لكن بد أو بيئة أو بيئة معانا أو دن هدي لو ورابين لها مهرات شريان إبليس با وقتها أصاب بحية إبليس با بيقبو أكتس خشو بيا أولي سقالو وانكو ورابين سقالو وقت أدق ويان ووقت آد أفرحن والتفت الساق بالساق لوغيه مقادي كري يسو لوغيه سيبا لسكو قينيا حوقي سيبا حوق كلا لو قينيا انديه بو أتكينيا قرقر شنقر حوق لأياك بحيث وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المشاق حق إلهي أيوسي سعوداء حق إلهي محاكا هرية إنسان كان محو قدمت إنسان كاني هن أجنو تصويرتا دبودية لحظات البرقسي أيات لما الشيء أقوى هذا نوشيس ماذا بكيسو يسبدلي إنده وتاقي يا قفك اختردي أوردن أي أكتوغا ولا حسسين يا لا إله إلا نبل لي ساسو إيغي يا شيغي ما هل كريو وقتي قاسوحو أركيا ماشو قلي ما كنا مسوى النار أيو أركيا نفتي أيا كبحث ولا كرتها أي شهادتي أيا اللو قبنايا wax loo qabta ma jiro waa ninkii loogu jeclaa waa madaxweynihii waa wasiirkii waa nin lacagta lahaa dadkii oo dhan way simayay firaashkii mawdka ayuu kor yaalaa dhakhtaradii oo dhan way quusteen wax u qaban karaan male gacmaha laga laabto wax la samayn kara male waa la sugayaa talow laa ilaaha ila allah ma oran karaya إلهي قاد بوافتشي ولا إله إلا الله له تسمعهم حولك يا محمد الصوت على الإسعاف واكبوا في السيارة وظن أنه الفراق لبا مالمون إيا لبا هبين أي ددكو إيادو أو كلا أينما قلما إني شاقا أول يوم يجيئك البشير من الله إما برضاه وإما بسخطه مالك أغهر يلبضا مالي مود أغدرا مالي وحويان ومالك أدنرشن كسي بحث إذ خلاص بمنسي ومالك مال وملائكتك إيمانيسو حق إلهي بملائكتك حق إيمانيسا تلو ما كني إيو وناق إيو الرالي أهانت إلهي أيا لقوقو بشارين يا مسعرض إلهي أيا لقوقو بشارين يا مال ومال كاسي ومال آدو أذك قفكو خاتم دي سمحين قنس وحال محال لقوقو بشارين يا مواناق إيا خير مسعفي إيا النار مال ومال كاسيري مال كاللبادنا ومال كإلهي أي تسهر تاقدونتي ee kitaabka lagu siinayo ma midigta laga siinaya kitaabka mise bidixda laga siinaya
labada maalimood aad bay u adag yihiin buu yidhi laba habeen baa jira oo aad iyo aad u dhibaato badan habeenka ugu horeeya waa layla tabiitu fiiha bilqabr habeenka ugu horeeya eed qabriga u hoyatid habeenka ugu horeeya maanta lagu aasay caawa qabrigaad u hoyatid waa habeen aad iyo aad u adag aad u foolxun aad u daran habeenkaasi waa habeen cabsiya habeenka labaadi waa laylatan sabiixatuhaa yowma alqiyaama waa habeenka labaad ee subaxduna ay qiyaamihii u dhacayo labadaasi waa laba aad iyo aad u adag imaam shaafici radia allaahu canh ad wala garanaysaan zaahidka ahaa caabidka ahaa imaamkii idilaa imaamu haadihi alumma imaamkaasi markii uu dhimanayay radia allaahu canh dhimashadii markaa u timid ardaygiisii masani ayaa u yimid waxa uu ku yidhi kayfa asbaxta seed waa beriisatay see tahay waxa uu yidhi asbaxtu min addunyaa raaxila waxaan waa beriistay aniga oo maanta adduunka ka tegaya adduunkan ayaan ka sii socdaa waliikhwaanii mufaariqa asxaabtaydii iyo dadkii aan jeclaa iyo walaalahay waan ka faaruqayaa walika'si almaniyati shaariba mowdka dhimashadiis adayga dhimashada sakaraatulmowdka ayaan gelayaa oon cabbayaa koobkiisa ka cabbayaa walisuu'i camalii mulaaqiya noloshayda acmaashii xumayd een soo maray en iloobay oo dhan ayaan la kulmayaa xumaantii oo dhan ayaa laygu xisaabi doonaa wa cala allaahi waarida ilaahay xaggiisa ayaan socdaa falaa adri ma garanayo ma hubo ruuxii tasiiru ila aljanna ruuxdayda iyo naftayda xaggaa iyo jannada ayaa loo qaadi oo u tahniyadeeyaa mabruuk miyaan idhaahdaa mise xagga iyo naarta ayaa loo qaadi oo waan tacsiyadeeyaa intaa kadib imaam shaafici radia allaahu canhu wuu ooye imaam axmed waxa uu soo bixiyey xadiid anas radia allaahu canhu uu nebiga ka warinayo anas waxa uu yidhi nebiga ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa araada allahu bicabdin khayran istacmalahu qabla mowtih ilaahay addoonkiisa hadduu khayr la doono ilaahay wuxuu ku sallidaa wuxuu ku mashquuliyaa waxaa la jeclaysiiyaa intuuna dhiman ka hor camal wanaagsan ayaa laga shaqaysiiyaa saxaabtii baa yidhi yaa rasuula allah wa kayfa yastacmiluh maxaa laga shaqaysiiyaa lagu mashquuliyaa nebigu waxa uu yidhi yuwafiqhu licamalin saalix camal wanaagsan ayaa lagu mashquuliyaa oo la waafajiyaa uma yuqbiduhu calayh kadibna camalkaa wanaagsan isaga oo ku sugan ayaa ruuxda laga qaadaa nafta laga qaadaa naftiisii isaga oo khayrkaa ku jira khayrkaa ku dadaalaya ayay naftii ka baxdaa waa loo bishaaraynayaa wuxuu ku dhimanayaa laa ilaaha ila allah muxameda rasuulullah ayuu ku dhimanayaa ilaahay baa yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazzalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun ilaahay waxa uu yidhi kuwii odhanayay rabbigay waa ilaahay ee kadibna toosnaa xaqa ku adkaa xaqa qabsaday salaada tukanayey soomayey maxaarimta ilaahay ka baxsanayey ka cabsanayey kuwaasi xaaladda ay dhimanayaan markuu mowdku u yimaado ilaahay ma hoojinayo yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wafi alaakhira ilaahay wuxuu xasuusinayaa kelmaddii laa ilaaha ila allah ay ku celcelinayeen kelmaddii baa la xasuusinayaa laa ilaaha ila allah muxameda rasuulullah ayuu ku dhawaaqayaa ayuha alikhwa nolol fiican ayuu ku jiraa waa la xasuusiyey adduunku ku celcelin jiray salaaduu ku tukan jiray mar walba laa ilaaha ila allah muxameda rasuulullah waxaa la amre oo dhan ayuu ku dadaalayay siduu uga soo bixi lahaa wakhtigaas ay naftu ay ka baxayso malaa'igtii baa u imanaysa waa loo bishaaraynayaa maxaa lagu leeyahay anlaa takhaafuu
عبسنينا ملائك بكسو دكت ملائك وناكسن وبشارينيسا وجهوغو دلاليو waxay leeyihiin alla takhafu عبسنينا waxay nagu soo socdaa ka cabsanina janno iyo wanaag iyo khayr bashbashiya barwaaqa inagu soo socoto jannadii ilaahay baa inagu soo socda cabsanina hanaga cabsanina naara ka cabsanina aakhiraha ka cabsanina bishaaraysta wanaag iyo khayr baa inii sugan wala tahzanu hamrugoonina waxaad ka tagtaan awlaadiini maalkiini dumarkiini ilaahay baa ilaalinaya ha umrugoonina waxa inagu soo socdana ha ka cabsanina laleeyahay wa abshiru bishaaraysta bil jannati allati kuntum tu'adun jannadii alla inagu ballan qaaday jannadii la yiri qofka u soo shaqaysta ee u soo dadaala ilaahay ma hoojinayo jannadii ayaa la leeyahay u bishaaraysta waatan jannadii waad gelaysaan bishaaraysta saasa loogu bishaaraynaya xilima markay naftu ay ka baxayso marka ay qubuurtooda ay galaan iyo marka la soo saarayaba aakhiro mu'minku waqtiga uu farxaya wuxuu ku farxaya la kulanka uu la kulmayo allah ilaahay uu la kulmayo ayuu ku farxaya markay dhimashadu u timaado waqtiga uu farxaya nabigu waxa uu yiri calayhi salatu wassalaam xadiiskii ubaadah ibn samit nabigu waxa uu yiri man ahabba liqaa allah ahabba allah liqaa'ah waman kariha liqaa allah kariha allah liqaa'ah ninka jeclaada la kulanka ilaahay uu la kulmayo ilaahayna wuxuu jeclaadaa la kulankiisa waman kariha liqaa allah ninka karha la kulanka ilaahay uu la kulmayo kariha allah liqaa'ah ilaahayna wuxuu karha la kulankiisa Aisha waxay tiri radiyallahu anha inna lanakrahu al-maut ya rasuul allah nabi allah gibigayow mawtka waan karahna ma jeclin nabigu waxa uu yiri arintu taamaha Aisha laakiin waqtiga mu'minku uu dhimanayo waxa loo bishaareeyaa naxariista ilaahay raali ahaanta ilaahay karaamada ilaahay aduu markaasuu jeclaadaa mu'minku waxa uu ku sii socdo ayuu jeclaadaa ilaahayna wuxuu jeclaadaa la kulankiisa ka kale ee kaafirka ah ama munaafiqa ah waqtiga waxa loo bishaareeyaa xumaantiisa iyo sharkiisa iyo cadaabka u galayo ayaa loo bishaareeyaa iyo waxa u dambeeya markaasuu nacaa la kulanka ilaahay ilaahayna wuu nacaa la kulankiisa ayuha alikhwatu alkiraam xusnu alkhaatima waxyaalaha lagu garto calaamaadka ugu horeeya ee lagu garto waxa weeyaan qofka inuu ilaahay waafajiyo inuu ashahaato uu yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxammad rasuulullah adduunkii uu ka baxaya adduunka maalinkii uu soo gelayay uu soo dhashay dhegta midig ayaa lagaga aadaamay أول شيء مقلي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أيا لما قشي الدون كمركو كبحينا وحوك كبحي إساقو أولي لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي وحا يلي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قفك أو نقضه هذا الكيس كأودن بيا النقض لا إله إلا الله وإلهي وافتيو نبي وحا يري كاسي دخل الجنة جنة أي قال يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام أن سوي دينه ما أنت إمسي أيادتك لا إله إلا الله محمد رسول الله كورنس تضبطا ما حسستان بلا إله إلا الله محمد رسول الله بل تصويران داوضا تصويران أي نفتي كبحثي قعنتي ساسي كوين جيت إلهي حصية أي نفتي كبحثي كدبنا ساسو كودنت آخر شيء تسبيح إيه ذكر إلهي أي هذا الهي إساقو أو تكانيا أو إلهي ويدي سنيا إنو إلهي خاتمدي سأو وناتيو أي نفتي كبحثي ساسو كوين جيت isagoo oo sujuudsan ayuu ku ingegay sujuud ba naftiisa ka baxday saasoo ku qalalay qabrigii waxa la dhigay isagoo oo sujuudsan aakhirana waxa la soo saaraya isagoo oo sujuudsan maxaa ka wanaagsan Allahu akbar waan ku daawasiin doonaa ilaahay baa waafajiyay wanaag buu arkay
kadibna isagoo oo aad u qoslaya ayay naftii ka baxday war dhulka Filistiin askartii yahuudda ayaa ku dhufatay qori rasaas aakhir laxda markay naftu ka baxaysay wuu qoslay saasay naftu ka baxday isagoo oo qoslaya oo faraxsan ilaahay baa wax tusay wanaag iyo khayr baa la tusay waa shahiid ilmaha yar ku qalalay isagoo ilaahay baryaya oo kacbada jooga maxaad u malayn ilaahay suu khaatimadiisa ugu wanaajiyey saasuu ku qalalay saasuu ku ingegay qabrigii baa la dhigay isagoo ilaahay baryaya allahu akbar waa xusnulka ayuu dhintay isagoo oo sujuudsan waa maalin jimce ayuu dhintay radia allahu canhu usoo shaqaystay ninkan waxaad arki doontaan isagoo oo sujuudsan masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay naftu kaga baxday maxaad u malayn waa masjidkii nebiga waa madiina waa meeshii fadliga badnayd waa meesha salaada quraatee lagu tukado 1000 salaadood ay la ajar tahay ama 500 1000 salaadood ay la ajar tahay weeyaan meeshaasay naftu kaga baxday waa fadli badan waa ilaahay baa waafajiyey khayr iyo wanaag توجي بقى وح أكويري أخرجوا عني يقبح فلا يبقى أحد قف أيو يقول أجهرين يقبح أبويري جيبي قد ويكبحان ويدقي سديا الباب كأكتش أي إساقين سعلي وأنك هديب الصعداء حاجة ساكي يقبح لي نفته سعودي يكد علي وكدب الصعداء ملك الموت ما يقانو كبدو عيارة يا أكادي ملك الموت ما يقانو كانوت كان يا أكادي ملك الموت درسي بحنا يسان درسي أمر بحنا يا أكله سوى أكتشره أي نفتك بحثك يا رب يا رب سك يا رب درسي بحنا يا والله صعتان ذاك ولا سواء قبطي ولا سواء هيا وأشاهتي عنده كل تاجي حاجة سوداء ولا مسوا علنا يا مركله عنده كل تاجي دونا وأشاهتي آخر لحظة وأشاهتي نفطه كذا وحسن الخاتمة شو أنا هو فتشين القرآن أخريه إنه أشاهته إنه أدر دارمه وحالتي أي نفته أي كبحيش سورة تبارك أي أخرية ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم ينظروا إلى السماء إلا أن خلقتني ولا عبدك اللهم اغفر لنا حتى تب علينا يا أبدي ورحمني. مرحبا بهذه الوجوه وجياشا قرح بضن أسودواته ليست بوجوه إنس ولا جان وجياشا قرح بضن إن إنسنا أهين جن أهين أسودواته كدب وحو أخري آيات قرآنك
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إلهي وحا إليها دارت آخرة وحا أن سينينا أن أيالينا كوان أرلاد اسكو كبرينين أرلاد أن فساد لدونين عاقبتنا وحا إسكاله متقين تأي إسكاله كدبنا رحمه الله ساس أيوكو دنس dhimashadii marka u timid abulwafaa ibnu cuqayl aad buu u ooyey. markaasaa waxaa lagu yidhi maxaa ku helay? reerkiisiiba aad u ooyey. markaasaa waxa uu ku yidhi lii 50 sana acbudu, waxaan u tegayaa ilaah naxariis badan 50 sano ayaan ilaahay soo caabudayey, maanta ayaan u tegayaa. naftayda ha faraxdo oo ilaaha aan soo caabudayey ha la kulmo oo naftayda hanagu tahniyadeeye maxaad igu ooyeysaan ayuu ku lahaa. jaabir ibnu salami alkalabi ayaa waxa uu midigeliyey saxaabigii caamir ibnu fuhays radia allahu canh. markii ay mididii ay gashay ayuu caamir dhawaaqay, waxa uu yidhi fuzdu warabbi alkacba, ilaaha kacbada laan ku dhaartee waan guulaystay oo waan liibaanay. bilaal ibnu rabaax radia allahu canh markii dhimashadii u timid sakaraatulmowtkii markuu u yimid ayuu qoslayey, wuu faraxsanaa. waxa uu lahaa gadan nalqa alaxiba, beritoole waxaan la kulmayaa dadkii aan jeclaa, saxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nebigii iyaan la kulmayaa. gadan nalqa alaxiba, haweenaydiisii baa oyday. markaasaa waxa uu ku yidhi maxaad la ooyeysaa? gadan nalqa alaxiba muxamadan wa saxba, beritoole ayaan la kulmayaa maxamed iyo saxaabtiisii. waa bilaalaah, waa xusnaa bay tiri, way bilaalow, way murugtayday. markaasaa waxa uu yidhi waa faraxaa, way waa farxadayde, way waan faraxsanahay anigu. calaamadaasi waa calaamadda ugu horaysa. xusnulkhaatima waxaa lagu garanayaa qofka inuu ilaahay waafajiyo shahaadada, inuu wakhtigaa u farxo. calaamadda kale waa dhabanadiisu inay dhididaan wakhtigaas. nebigu waxa uu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam almu'minu yamuutu bicaraqi aljabiin, qofka mu'minka marka uu dhimanayo labadiisa dhaban ayaa dhidid ka soo boodaa. dhidid buu ku dhintaa buuhi nebigu calayhi salatu wasalam. qofka mu'minka dhidid ayaa ka soo booda. xusn khaatima calaamadaha waxaa ka mida inuu qofku dhinto laylat aljumuca, habeenka jumcaha inuu dhinto ama dharaarteeda inuu dhinto. imaam axmed waxa uu soo saaray iyo imaam tirmidi cabdillaahi ibni camr inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam muslim ma jiro dhimanaya maalinka jimcaha ama habeenka jimcaha ilaa waqaahu allahu fitnata alqabr, ilaa hadduu jiro ilaahay waxa uu ka badbaadiyaa cadaab alqabriga ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mida xusn alkhaatima inuu qofku isaga oo dariiqa ilaahay u dagaalamaya inuu dhinto. inuu dhinto ama uu daacun dilo, ama caloosha intay shubanto uu ku dhinto, ama qaraq uu ku dhinto oo biyo ay qaraqiyaan, ama isaga oo maalkiisa difaacaya uu ku dhinto. intaas oo dhan waa calaamadaha wanaagsan. maxaa sababa haddaba? maxaa sababa oo lagu gaadhi karaa acmaasha wanaagsan? ta ugu horaysa waa maxay? waa alistiqaama, qofku inuu dariiqa ilaahay ku toosnaado. ilaahay baa yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu, kuwii yidhi rabbigay waa allah, uma istaqaamuu kadibna toosnaaday kuwaas tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu. kuwaasi waa xusni wanaagsan iyo khayr wanaagsan ayaa u sugan buu ilaahay leeyahay. ta ugu horaysa waa alistiqaama, qofku inuu dariiqa ilaahay ku toosnaado.
sharka uu ka fogaado xumaanta uu ka fogaado talabaadi waxa weeyaan at-taqwa inuu ilaahay ka cabsado ilaahay baa yiri waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ninka ilaahay ka cabsada ilaahay arinkiisa oo dhan waa u fudaydiyaa tasaddexaad waa as-sidq run inuu sheego ilaahay baa yiri yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha hoykii alliya nabigiisii rumeeyow ilaahay ka cabso ittaqullaha ilaahay ka cabsada wakunuu maca asaadiqiin kuwa saadiqiinta macooga ahaada buu ilaahay yidhi waxaa kaloo lagu gaadhaa attawba qofku inuu ilaahay u toobad keeno ilaahay baa yidhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun war ilaahay u toobad keena dadow waxaad mudan tihiin inaad liibaantaane inuu daacada ilaahay u daa'imo umuudka xasuusto taas ayaa lagu gaadhaa xusn alkhaatima khaatimada oo wanaagsanaad suu lkhaatima walciyaadu billaah inay khaatimadu ay qofka ay ka xumaato qofku inuu gaalnimo ku dhinto dad badan baa maanta marka ay dhimanayaan ku dhintay iyagoo diinta caayaya qaarkood iyagoo ilaahay caayaya ayay ku dhintaan xaafid ibnu rajab raximahullah waxa uu ku soo saaray kitaabkiisa jaamic alculuum walxikam la yidhaahdo in culamada qaarkood sheekh la yidhaahda cabdilcaziiz ibni abi ruwaad inuu yidhi nin dhimanayay ayaan u imid waa markuu dhimanayay markaasaan xasuusinay laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah ayaan xasuusinay markaasaa waxa uu yidhi huwa kaafirun bima taquul wuu ka gaaloobay isagu waxaan ad leedahay taas ku celceliyey huwa kaafirun bima taquul waxaan ad leedahay laa ilaaha ila allah uu ka gaaloobay saasuu ku dhintay waxa uu yidhi markaan sii baadhbaadhay ninkaasi waxaan ogaaday inuu khamrada uu aada u cabbi jiray wuxuu odhan jiray cabdilcaziiz ittaqu dunuub dunuubta ka cabsada fainahaa hayinun fahiya alatii awqacathu taasi waa ta ninkaa ka dhigtay inuu ka gaaloobo ilaaha iyo laa ilaaha ila allah waxa uu soo saaray imaam xaafid addahabi nin khamrada aada u cabbi jiray ayay dhimashadii u timid dadkii ag fadhiyey baa xasuusiyey laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah markaasa waxa uu ku yidhi kii ku lahaa laa ilaaha ila allah ku dhe ayaa waxa uu ku yidhi ishrab cab adugu khamrada wasqini iwaraabi anigana cabo anigana iwaraabi isagana waa la xasuusinayaa waxaa lagu leeyahay laa ilaaha ila allah dhe isna waxau le adu cabo khamrada anigana isii isagoo oo sidaa leh ayay nafti ka baxday ibnulqayim waxa uu soo saaray kitaabkiisa qayimka ah waxa uu ku soo saaray nin markii naftu ay ka baxaysay ayaa lagu yidhi laa ilaaha ila allah dheh markaasaa waxa uu yidhi isaga oo heesaya ayaa wuxuu lahaa taantaan taantaantaan waxaasuu akhriyey waa misiigi iyo waxaan loo joogin ayuu ku dhawaaqay isaga oo taantaantaantaa haya ayuu malakulmowdkii u yimid oy nafti ka baxday waxaa dhacay waktigeenan casrigan aan ku jirna hadda dhulkan bangkok la yidhaahdo inan ciyaalka carabta ah ayaa u dhoof inuu ku soo tunto saaxiibadii ayaa ka maqnaatay meeshii khamriga lagu cabaya baarkii ayuu joogay kuwii kale uu la socday asxaabtiisii mid walba saaxiibadii baa u timid isaga ayay ka habsaantay aad buu u murugaysnaa wuu raagsanayey xagay ku habsaantay maxaa helay markii ay soo gashay wuu farxay isla markuu arkayba wuu u sujuuday isagoo oo u sujuudsan ayay nafti ka baxday suu lkhaatima saasay naftii kaga baxday walciyaadu billaah ibnuqayim waxa uu sheegay bacdu tujaar qaar ganacsanayey oo dharka iibin jiray marada iibin jiray ayaa markay dhimashadii u timid ayaa lagu yidhi laa ilaaha ila allah dhe markaasaa waxa uu yidhi maradan waa rakhiis kiibuu ku leeyahay maradan waa rakhiis markaasaa lagu leeyahay war laa ilaaha ila allah dheh markaasuu leey maradan aad ba u fiican tahay waa rakhiis wax yar baan kaaga iibinayaa
saasuu ku dhintay isagoo oo laa ilaaha ila allah keli lah ayuu dhintay sheekh cali alqarni la yidhaahdo waxa uu ka sheekeeyey inan yar oo sakaraatulmowtka u yimid markaasay waxa ay ku yidhaahdeen laa ilaaha ila allah dheh markuu sii dhimanayay markaasaa waxaa iga daayo bal sigaar ii dhiib waxaa lagu yidhi war laa ilaaha ila allah dheh waxa uu yidhi acطuunii dukhaanan sigaar isiiya sigaar baa igu darane markaasaa lagu yidhi oo lagu celiye mar kale laa ilaaha ila allah dheh waxa uu yidhi anaa barii'un minhaa berii baan ka ahay ma doonaye laa ilaaha ila allah waan ka gaaloobay laa ilaaha ila allah acطuunii dukhaanan sigaar isiiya isagoo oo sigaar isiiya leh ayaa naftii ka baxday inan yar oo kale waktigii sakaraatulmowtkii dhimashadii u timid kuwii ag fadhiyey ayaa waxa ay ku yidhaahdeen laa ilaaha ila allah maxameda rasuulullah dheh wuu hadlay hadalkiisii bay maqli waayeen way dhegaysteen mar kale ugu celiyeen waxa uu yidhi kitaab qur'aana ii dhiiba way farxeen dadkii kitaab qur'aana ii dhiiba way farxeen dadkii kitaab qur'aana loo keenay dadka oo bishaaraysanaya oo le alxamdulilah ilaahay u waafajiyey kitaabkii qur'aanku kor u qabto markaasaa waxa uu yidhi ushhidukum annii qad kafartu birabbi hada almusxaf waxaan inii sheegayaa ilaaha kitaabka qur'aanka leh ilaaha inaan ka gaaloobay isagoo oo sidaa leh ayay nafti ka baxday ayuha alikhwatu alkiraam waa xaalad aada u daran wakhtigaas ilaahay wuu ballan qaaday يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي كلمة لا إله إلا الله وحو حسوسينيا وحا خاتمة الله هقاتينيا والله وافتينيا قفك كسود دالي لا إله إلا الله كسود دالي صوتك انشري أوامرت إلهي قادن شري حمانت كفوقان شري وقتك إلهي وحسوسينيا قفك كلا ولا إلو سينيا وحي أجعلا ayaa ku soo boodaya waqtigaas asbaabta keenta suu'ul khaatima waxaa ka mida fasaadu اlictiqaad qofka oo caqiidadiisa xumaato ayaa ka mida caqiidadiisa xum ilaahay asmaadiisa ma garanayo ilaahay weynadiisa ma yaqaano ilaahay subxaanahu wa tacaala ma caabudo uma tukado waxaa ka mid tahay asbaabta lagu garto suu'ul khaatima khaatimada qofkaasi inay xumaanayso waxaa ka mida qofka oo adduunka jeclaada oo aakhiro u daba jeediya aakhiri iyo waxaan ana daba wadaani maxay tahay war adduunka ka shaqaysanayna daaya laguma diidan adduunka ka shaqayso aakhirana u dadaal aakhira waa meeshaan u soconno markaasaa waxa uu ku leeyahay aakhiro ilaahay meesha doonaha igu tuuro adduunka u jeclaaday بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إلهي وحا أوليه وحا الدور بديسان الدون كان قابا أي الدور بديسان أشعشه آخرة ضدوك خير سبحانه وتعالى وحا كميد سوء الخاتمة الإصرار على المعاصي قوك أو معاصدة كودك سنادة كؤد كاذا هد يشير معاصدة أنكو تشيرا أنكو توبتكيني قفكو هدو كعادية تاسا لوغو ختما ساسو النبي انو شيغ عليه الصلاه والسلام حافظ ابن كثير وحا يري ان الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت قفك او ذنوبتيسو اي بدتو معاصيديسو اي بدتو شهواتكو راعي اي فربدتو waxay hoojisaa marka dhimashadu u timaado markuu moodka u yimaado markaas wixii uu jeclaa ayuu ku soo boodaa markaasuu shaytaanku u yimaadaa uu xaqii iyo waanadii iyo laa ilaaha ila allah alla waafajin ilaahay baa yidhi wakaana ashaytaanu lilinsaani khaduula shaydaanku wuxuu ku dadaalaa insaanka siduu u hoojin lahaa ayuha alikhwatu alkiraam kaan ku dadaalno inaan daacada ilaahay aan ku adkaano inaan ku celcelino laa ilaaha ila allah muxamada rasuulullah inaan mar walba xasuusanno ilaahay inuu khaatimadeena u wanaajiyo taan ku dadaalno ilaahayna hanagu anfaco kelmadda kooban wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh